Hello everyone, welcome back to my teaching channel. Today's lesson is going to be lesson 8 and it is conversation. Marka kusoo dhawaada kanaalkeyda cashirka taxanaha ka socday. Maanta maxaa waaye cashirkeena 8aad. Cashirkana muxuu ku saabsan yahay sheekeeysi ama wadahadal. Marka qayb English inta kusoo qoray. This is the English part. So conversation between two people. Maxaa waaye wadahadal oo laba qof. Waana wadahadal yar oo luqadan ku fahansiinaya wax badanna ka fahmaysid. Marka waa isla wada akhrineena. Adiga hadaa meel ku qoranaysid ku qoro. Wadahadalkeena koowaad laba qof baa wada hadlaysa, Cali iyo Aamina. Marka maxaan dhahaynaa Cali hadalka bilaabayo. Muxuu dhahayaa hi, how are you? Aamina ula jeeda. Aamina maxay dhihi I am fine, thank you. Thank you for asking. How about you? Fasiraada waa aadi doonaa. I'm doing well. I am doing well. Ama I am fine. Adii karta. I am fine. Thank you. It's nice to see you. It is nice to see you. Aamina waxay ku jawaabi nice to see you too. Ali muxuu dhahaa what did you do over the weekend? What did you do over the weekend? Aamina waxay ku jawaabi I went out with my friends. I went out with my friends. Aan ku soo celina mar labaad. Hi, how are you? Ali ayaa dhahayo. Aamina waxay ku jawaabi I am fine, thank you for asking. How about you? How about you? I am doing well. Ama I am fine, thank you. It's nice to see you. Aamina waxay dhihi nice to see you too. Nice to see you too. What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? Aamina waxay ku jawaabi I went out with my friends. Hadaa kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar sida cashiro badan oo la xiriirtid kuwii horena u raacdid. Kanaalka maxaa la lahaa English-Somali Translation Hub. Waa qori YouTube ko ku soo bixina subscribe saaro notification kana on ka dhigo. Waa fahantaa filaya. Hadaa wax fahmin ee ku yar dhibaan comment lagu soo qor. Marka waa isla soo wada akhrinay. Meesha ay leedahay ku istaag ama dhibic hadalka lagu dhameynayo comma, full stop iyo calaamad su'aal waa kala bixin doonaa insha Allah mar kale. Hadalka hadday intaas lahayn shaqalkaas lahayn waa ku wareeri. Hadda tan camal hi, how are you? waa sixi doonaa insha Allah. Af Soomaaliga dhinaceeda waa tana wada hadalka Ingiriiska iyo Soomaaliga. Conversation in English and Somali. So Somali ahaan hadda waa tana xaadihi waa fasireena waana conversation kama wada hadalka deity of English-ka ee Soomaali ku fasiray. Maxaa Cali dhahaa ii waran sidee tahay? Aamina waxay ku jawaabi waan fiicanahay. So sorry, this is the Somali part for those who are learning the Somali. So we learned the English conversation. Now this is the translation, Somali translation. So our first person is Ali. It's written like this in Somali. The A is pronounced, the C is pronounced as A. So we are saying Ali is saying ii waran sidee tahay. So the first person is Ali saying ii waran sidee tahay. Aamina saying waan fiicanahay waad ku mahadsan tahay weydintaada. We will translate one by one. I hope you will pause there and then you read from there. If you are confused, let me know. So hello, the first one was this. Hello, how are you? Ii waran sidee tahay.
ii waran sidee tahay. Hello, how are you? I am fine, thank you for asking. How about you? Waan fiicanahay, waad ku mahadsan tahay weydintaada. For asking, that is weydintaada. Adiguna sidee tahay. Adiguna sidee tahay. I am fine, thank you for asking. How about you? Waan fiicanahay, waad ku mahadsan tahay weydintaada. Adiguna sidee tahay. I am doing well ama I am fine, labada waa dhihi kartaa. Thank you. It's nice to see you. Waan fiicanahay, mahadsanid. Waa wax fiican inaan ku arko. I am doing well, thank you. It's nice to see you. Waan fiicanahay, mahadsanid. Waa wax fiican inaan ku arko. Nice to see you too. Nice to see you too. Sidoo kale waa wax fiican inaan ku arko. Nice to see you too. Sidoo kale waa wax fiican inaan ku arko. Nice to see you too. Sidoo kale waa wax fiican inaan ku arko. What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? Maxaad samaysay dhamaadka usbuuca? Maxaad samaysay dhamaadka usbuuca? What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? Maxaad samaysay dhamaadka usbuuca? Usbuuca is weekend ama the end. Dhamaadka is the end. I went out with my friends. I went out with my friends. Waxaan raacay asxaabteyda ama waxaan la banaan baxay ama banaanka isku raacnay asxaabteyda. Waxaan raacay asxaabteyda ama asxaabteyda ayaan banaanka la aaday. I went out with my friends. 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 So cashirka Soomaaliga, if you didn't understood the Somali part, please go and pause there, then you read from there. If you are confused, let me know. And thank you for watching. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Thank you for watching. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Marka saamar soo sheegay aniga maxaan dhahay Ingiriiskayda dhawaaqiisa waa dhawaaqa Britishka ama UK ama Ingiriiska lagu hadlo. Dhawaaqa Amerikaanka kuma hadlayin. Marka hada adi America joogtid wax ku wareerta iyadana sidoo kale ila soo wadaag. Soomaaligana oo ku sheegay waa Soomaaliga iska fudud oo iska simple ka aan isticmaalayaa. Naftirkiisa hada ku wareerta asigana comment-ka igu soo weydii. Sidoo kale TikTok ayaan leeyahay. TikTok-kana follow igu soo dhaha sida casharadeyda ula socotiin. Hada wax qoran rabtidna buug iyo qalin soo qaado. Waa kaasa waxa qoran rabtid saa ku hilmaamin ugu soo noqo casharadii aan baranay. Insha Allah waa baranay luqadda. So I was saying my English pronunciation is the British one or the UK one. So I'm not using the American accent, and my Somali is the simplest one. I think it is. So if you want to learn more of my Somali, you come with a book or you just note down something so that you remind yourself, and as time goes on you will learn. Thank you.